الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي اللي هي طبناد هي دروس تاني حجكي عمرضة كوسا سنيد بإذن الله تبارك وتعالى قارها وعن كجرني دروستي خاصة وهي الدمركة عشركي خاصة كوها هوينكا إيو أحكام تودا خاصة مركي جوغان حجكي عمرضة haweeneyda xaayadada ah oo dhiigga caadadu ay intay leedahay gabadhu ama dhiiggii nifaaska oo dhalmada ahaa dawaafka la yidhaahdo dawaaful wadaac oo midka sagootiga ahoo marka laga tagaayo intii acmaasha la dhammaysto la bixi rabo in ilan waxaa la rabaa kacbada lasoo macasalaamay oo dawaaf wax la yidhahdo lagu soo sameeye kaas lagama rabo mar haddii gabadhu dhiigga ay leedahay waxba iyada lagama rabo sharcigu fududeeyey waana loo taysiiriyey haweeneyda markay noqonayso marka waxaa la rabaa in reerkeeda way raaci kartaa dadkeediiba iska raacaysaa jamaacadii ay la socotay ba iska raacaysaa dawaaful wadaaciina way iskaga tegaysaa wax dhibaato ah ma leh haweeneyda xajka horey baynu usoo sheegnay bedelu xajka waxaa la yidhaha dadka hadda bedelu xaj baa la sameeya oo dadka waa laga xajiyaa marka ragguna dumarka way ka xajin karaan dumarkuna ragga way ka xajin karaan wax dhibaato ah ma laha haweeneyda xajka markay rabto looma shartiyo ninkeeda inuu ogolaado oo keli ah haweeneydu hadday maxram helayso tusaale wiil ay dhashay baa jooga ama walaalkeed baa jooga ama aabaheed baa jooga xajkuna waa kii waajibka ahaa oo xoolay leedahay oo waajib buu ku yahay ileen markuu iyadu waajib ku noqon waa marka iyadu hanti ay leedahay xilligaa haddii la gaadho oo waajib uu ku noqdo haddii tusaale ninkuba uu diido ama shardi maaha way bixi kartaa maxramkeeday ka haysanaysaa way xajinaysaa laakiin waxaa sunno ah baa la yidhaahdaa inay idan ka qaadatabaa wax fiican ah haweeneyda laga dhintay oo ciddada ku jirta xajka ma aadi karto inta ay ku jirto 4 bilood iyo 10 beri maxaa jira inay guriga joogto oo ayaa laga rabaa oo waajib ay ku tahay laakiin ciddada la yidhaha ciddatu dalaaq ciddada way kala duwanta ciddana ciddatul wafaa baa la yidhaha midda laga dhintay weeye midna waa ciddatu dalaaq oo waa tii la furay oo weliba dalaaqaasi waa dalaaqa ugu dambe 3 dalqadoodba haddii gabadha loo dhammeeyo markaa way iska bixi kartaayoo way xajin kartaa inay joogto waxba lagama rabo oo ma bixi kartid lama dhahayo laakiin middan oo laga geeriyooday iyadu inta ay ciddada ku jirto bixi mayso oo xaj ma aadayso haweeneyda waxaa sunno ah inay u qabaysato ixraamka marka ay xarmanayso xaj iyo cumraba xitaa haddii ay tahay xaa'ido iyo nufasaa hadday dhiiggii dhalmada leedahay ama dhiiggii xaydka hadday leedahay inay qabaysato weli waa laga rabaa haddii ay gabadha cumradii oo mutamatic ay tahay mutamatic waxaa la yidhaahdaa 3 nooc baa loo xidhaayo noocna ifraad baa la yidhaahdaa matalan cumro keligeed ah ama xaj keligii ah noocna waxaa la yidhaha tamatuc waa inuu qofku marka hore cumro uu intuu xarmado keligeed ah laakiin xajkii buu rabaa haddana inuu sameeyo midna qaarin baa la yidhahdaayo xajkii iyo cumradii baa laysku daraa gabadha marka midkan mutamatico hadda inta badan sida loo xajiye ah oo markii meesha intii lasii tago hadda waqtiyadan aan ku jirno oo kale intii lasii tago oo lasii cumraysto maalmo la joogo 8 markay tahay bisha dhulxija ay 8 noqoto haddana markaa la bilaabayo xajkii acmaashiisii xilligaas oo kale haddii gabadhu marka intay cumradeedii dhammaysato uu dhiiggii xaydka ka yimaado ama ay dhasho intaynan dawaafin ayay arrintaasi ku timid daahirna ma aynan noqonin ilaa laga gaadho sagaalaadkii oo qof carfo laga gaadho gabadhaasi xajkii bay xarmanaysaa oo xidhanaysaa qaarin bay noqonaysaayoo xajkii iyo cumradii bay isku darsanaysaayoo isugu jira yacni midka ay xidhatay baa nooca u noqon waxay samayn waxa qofka xaajiga uu sameeyo oo dhan bay samayn laakiin kacbada ma dawaafayso ilaa ay daahir ka noqoto oo ay ka qabaysato
طواف كليا طواف بana hal waxaa lagu leeyahay laysa calayha ilaa طawaafun waaxid hal طawaaf baa ku filaanaya iyo hal sacyi ayaa ku filaanaya dawaafku quduumkii horena wuu ka dhacayaa oo waxba loogama baahna sidaas daraaddeed gabadha hadduu dhiiggaasi ka yimaado iyadoo acmaashii kala wadin wax intay iska xajkii xarmato waxaa alla waxa xaajigu samayn oo dhan bay samayn taas micnaheedu minay tegaysaa waxay tegaysaa carafay tegaysaa musdelifay tegaysaa buurihii bay gananaysaa timihii bay gaabsanaysaa oo meesha intii laga goyn lahaa ka goyn gawricii baa laga samaynayaa laakiin dawaafkii unbayna samaynaynin muddada ay dhiigga leedahay dawaafkii kacbada lama ogola iyada marka dib bay u dhiganaysaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala qof kasta oo muslim ah allah uu suuro geliyo inuu beydkiisa booqdo uu soo ziyaarto oo uu weliba soo guto insha allah waajibka insha allah jazakum allah khayr baraka